الثياب واستبشري يا حور عين واهتفي تشدو الطيور وقصره في جانب الأنهار يبدو عاليا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، waxaan kusoo guda jirnay duruusteen imtixaanaha ahayd. maanta waa maalinimo talaado ah, kuna beegan 9 bisha shanaad 1440 hijriga, waana habeennimo arbac soo gelaysa. waa maanta oo kalena waxaan qaadan jirnay tafsiir. talaadada hore waxaan kusoo qaadan walaalayaal suuratulfaatixa tafsiirkeedii iyo sharaxeedii iyadoo faahfaahsan iyo aqwaasha culimmada ay ka yidhaahdeen. maantana waxaan qaadan doonaa insha allahu suuradda ku xigto la yidhahdo suuratul baqara ayaan qaadanaynaa insha allahu tacaala, inta waqtiga uu noo saamaxa insha allah. bismi illaahi araxmaani araxiim. bismi illaahi magaca allah ayaan ku bilaabayna ayuu ilaahay yidhi. allahaasoo arraxmaani naxariista guud makhluuqa u naxariista, allahaasoo arraxiimi naxariista gaar ahaaneed muuminiinta u naxariista. alif laam miim allahu aclam bimuraadihi bidalika alxuruuf. alifkaas iyo laamkaas iyo miimkaas saddexdaas xaraf waxaa loola jeedo ilaahay keliyaa garanayo. daalika kaas alkitaabu way kitaabka ah, laa rayba wax shaki ah fiihi dhexdiisa kuma sugnaanin, fiihi kitaabka dhexdiisa kuma sugnaanin. hudan hanuun weeye ayuu ilaahay yidhi, lilmuttaqiina muttaqiintana ku ilaahay ka baqaayana la hanuuniyo. aladiina muttaqiintii ayuu hanuun u yahay qur-aanka, yu'minuuna rumaynaayo bilgaybi waxyaabaha maqan oo makhluuqa ka maqan, sida qiyaamihii, jannadii, naarti. makhluuqa ma aysan arkin wax maqan wa qeybkaas maqan rumaynaayo. oo wayuqiimuuna salaata salaadana oogaayo oo toosinayo shuruuddeedii, arkaanteedii iyo sunanteedii. wa mimaa rasaqnaahum yunfiquun, oo haddana wayunfiquuna bixinaayo, yani wayunfiquuna bixinayo haddana mimaa shay wax kamid oo rasaqnaahum aan ku irsaaqnay. kuwa qur-aanka hanuunka ugu sugnaado waa kuwaas oo qeybka waxyaabaha dadka ka qarsoon, makhluuqa ka qarsoon rumaynaayo, laakiin ilahay waxba kama qarsoono. yacni salaadana oogaayo, wixii ilaahay uu siiyana wax ka bixinayo, kuwaasoo hanuun ugu sugnaaday. waaladiina muttaqiintii ayuu hanuun u yahay qur-aanka, yu'minuuna rumaysan bimaa diinkii unsila la dejiyey ilayka adiga lagugu soo dejiyey nabiga suubanow sala allahu caleyh wasalam, wamaa diinkiina rumaysan unsila la dejiyey min qablika adiga hortaada la dejiyena kuwa rumaynayo, kuwaasuu hanuun ugu sugnaaday. wa bilaakhirati hum yuuqinuun, oo wahum iyagu yuuqinuuna kuwii yaqiinsan ah bilaakhirati maalinka dambe oo aakhira. ulaa'ika kuwaas lasoo tilmaamay oo muttaqiinta ah, tilmaamahaas wanaagga badan lagu soo tilmaamay, calaa hudan hanuun korkiisii oo ku sugan yihiin, hanuunkaas oo min rabbihim xagga rabbigood ka ahaaday. wa ulaa'ika dadkaas tilmaamaha wanaagsan lagu soo tilmaamay, hum iyagu unba yani iyaga keliya almuflixuuna kuwa liibaanay. suurat lbaqara walaalayaal yani waa suurat madaniya ah, waa suuradaha magaalada madiina kusoo degtay bacd alhijra soo degtay. aayadaheeduna waa 286 aayadood, 286 aayadood. insha allah waxaan u sheegi doonaa hadduu waqti noo saamixo 6 arin oo suuratulbaqara ee la gaarta. arinka koowaad waxaan ka sheegaynaa fadliga ee leedahay. waa dheerta oo ugu dheeryaha fadligeeda, laakiin 2 xadiidaan kasoo qaadana. walaalayaal fadligeeda waxaa kamid ah xadiid saxiix muslim, imaam muslim uu warinaya, imaam axmed iyo tirmidi iyo nasaa-i iyagana sunankeed uu ku wariyeen. imaam muslim saxiixiis uu ku wariyey, nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam, waa min xadiidi abi hureyra, wuxuu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam, laa tajcaluu buyuutakum qubuuran, war guryihiina qubuuraha ka dhiginina. maxaa yeeley fa ina albeyta aladii yuqra'u fiihi suuratu lbaqarati laa yadkhuluhu shaytaan. maxaa yeelay guriga lagu aqriyo suuratulbaqaro lagu dhex aqriyo shaydaan ma galo oo shaydaan ma soo galo. saa darteed guryaha suuratulbaqara ha lagu aqriyo, shaydaanka si uusan usoo galin wuu ka cararayaa.
qabriyaan laga dhigin ila qubuurahaasi qur-aan laguma aqriyo waa mamnuuc marka guriga qabri ha ka dhigin oo qur-aanka ku aqri fadaa'ish waxaa ka mid ah xadiid labaad nabiga calayhi salaatu wasalaam isagana yani uu warinayo nawaas ibnu samcaan xadiidka imaam axmed aa soo saaray waana saxiix nabigu wuxuu yihi alayhi salaatu wasalaam yu'taa bilqur'aani yowma alqiyaama maalinka qiyaama waxaa la keenaa qur-aankaa la keenaa iyo wa ahlihi iyo ehelkiisi dadkii qur-aanka ehelku ahaa aladiina kaanuu yacmaluuna bihi dadkii qur-aanka ku camalfali jiri iyo qur-aanka laftigiisi labadaas waa la wada keenaa taqdumuhum suuratu lbaqarati wa aalu cimraan qur-aankaas iyagoo horkacayaan suuratu lbaqara iyo suuratu aali cimraan labadaas suura hogaaminayo marka fadaaisheedii aada u badan tahay labadaas xadiidan kaga gaabsana marka 6 qodob aan u sheegay qodob koowaad waa kaas qodobka labaad ee suuratu lbaqara la gaarta waxay hiya atwalu suuratin fi lqur'aan waa suuradda qur-aanka ugu dheer wa laba juz iyo xisib oo wax yar dhiman suuradda qur-aanka ugu dheer wa qodobka saddexaad ee la gaarta waxay suuraddan culummadu waxay yidhahdeen waxaa ku jiro 1000 qabar 1000 qabar waxaasaa dhici doono 1000 qabaraa ku jiro oo war la sheegayo qisooyin iyo war kale waxaasaa dhacay waxaa kaloo ku jiray 1000 amrin 1000 amar yacni waxaa sameey ifcal kada waxaa sameeya ilaahay iyo rasuulku urmeeya waxaa sameeya 1000 amaraa ku jirto waxaa kaloo ku jiro 1000 nahyi 1000 arrimoo la iska reebaya laa tafcalu waxaasaa samaynina laa tacfal kada sidaasaa samaynin addoommada ilaahayo sidaasaa samaynina qodobka afraad ee suuraddan ku jirta waxaa waa fiiha acdamu aayatin fi lqur'aan wahiya aayat lkursi suuraddan waxaa ku jirto aayadda qur'aanka ugu weyn oo aayatulkursi ah oo nabiga sheege alay slam ninkii aqriyo salaada kadib hadduu dhinto inuusan yani naar uusan gelaynin habeenka marka la seexana la aqristo yani qur-aanka suurad marka la yirahdo waxaa ugu weyn suuratulfaatixa talaadada horaan soo sheegnay laakiin aayaddii la yidhaahdo aayatulkursiga qur-aanka ugu weyn ayib qodobka shanaad ee suuraddan la gaarta waxay tahay walaalayaal waxaa ku dhex jirta suuradda atwalu aayatin fi lqur'aan qur-aanka aayadda ugu dheerna waa ku jirtaa waa yaa ayuha aladiina aamanuu idaa tadaayantum bidaynin qodobka lixaad ee suuraddan la gaarta walaalayaal waxaa ku jiro 5 qiso oo cajiib badan oo maxay tahay dad adduunka dhexdiisa intay dhinteen isla adduunka dhexdiisa ilaahay kusoo nooleeyey waa dad adduunka dhexdiisa ayagoo nool intay dhinteen haddana ilaahay soo nooleeyey qisadaas midda koowaad waxay tahay nin adeerkiisii dilay waxay noogu imaan doontaa in allaa yaamurukum an tadbaxuu baqara ilaahay adeerkaas la dilay waa soo nooleeyey qisada labaad waxay noogu imaanay meesha ay leeyihin xataa nara allaha jaara qoladii 70 qof oo nebi muuse ummadiis ka mid ahaa odayaashii oo yidhahda nebi muuse ilaahay isha noo saar ilaahay markaas birquu kusoo deeyey ama jibriil ha ku qeyliyey way dhinteen haddana ilahay waa soo nooleeyey qolada saddexaadna waxa waa qolo oo iyagana magaalo ka baxay aladiina qarajuu min diyaar wahum uluufun xadar ayagoo baqdin magaalada daacuun miyay cudur ka dhacay way ka carareen ayagoo geeri ka baqaayo ilaahay dad badan yahay kumaan kun ahayn wuu dilay haddana waa soo nooleeyey qisada afaraad waxay tahay nin magaalo baaba'san oo dhimatay soo maray markaas yidhi ilaahay arladan kayf ana yani ilaahay arladan soo nooleena kayfa yuxyi illaahu bacda mowta arladan dhimatay ilaahay soo nooleena ninkaas ilaahay isaga wuu dilay iyo dameerkuu watay 100 sano kadib wadana soo nooleeyey qisada shanaad waxay tahay suuradda lagu sheegay oo la yaabka badan 4 shimbiroo nebi ibraahim intuu jarjaray buuraha ku tuuray ilahay haddana waa soo nooleeyey 5taas qisaa ku jirta oo dad adduunka dhexdiisa la dilay dhintay la soo nooleeyey waxayna daliil u tahay qiyaamaha inuu jiro gaalada diidan in sidaas loo soo bixinayo ayib qodobka ugu dambeeyo aan ka hadlayo waxay tahay qodob 7 aan ku dara oo ah alif laam miim 3 tafsiiraa ku jirto alif laam miim 3 tafsiir tafsiir koowaad waa midka hadda aan sheegnay oo ah allahu aclam bimuraadihi waxaa loola jeedaa ilaah baa og tafsiirkaas waxaa ku fasiray abu bakr asidiiq cumar ibnu khadaab cuthmaan binu cafaan cali bin abi aalib 3daas khulafaa raashidiin iyo cabdullahi ibn mascuud radia allahu canhum 3daas wuxuu ku fasireen ilaaha og alif laamim waxaa loola jeedo waxaa ku raacay sufyaan athawri rabiic ibnu khaytham abu xaatim iyo ibnu xibbaan iyo caamir ashacbi dhammaantaas culammadaas waxay mareen alifkaas iyo laamta iyo miimka waxaa loola jeeda ilaaha garanayo waana 29 suurada lagu bilaawday xarfaas gogo'san alif laamiim daaha yaasiin qaaf nuun alif laamiim saad
yacni waxaa lagu bilowday suurada fara badan 29 suurada lagu bilowday intaas waxay leeyihin ilaaha garanaya macnahoodii waa qowlka labaad waxaa qabo culamo labaad waxay leeyihin maya waa la yaqaanaayo macnahoodii waxa waa yidhaahdeen ismun min asmaa'i subar suuradaha lagu bilowday magacood waa kaaf heye suuradda magaciid waa alif laamim suuradda magaciid qaaf suuradda magaciid waa nuun suuradda magaciid waa yaasiin suuradda magaciid alif laamim saad suuradda magaciid waxay leeyihiin waa suuraddaas lagu bilowday magac u tahay hadalkaasna waxaa qabo mujaahid ibnu jabri oo taabici ah sidaas ayuu qabaa maxaa la dhihi jiray waxaa kaloo qabo maxaa la dhihi jiray qataada qabo cabdiraxmaan ibnu zayd ibnu aslama raggaas mufasiriinta oo taabici iyo rag kale isugu jirabo way qabaan yani waxaa kaloo yani siibaweyne sidaasuu doortay imaamu nuxaad ayagoo aayad xadiid daliishanaya qowlka saddexaad wuxuu yahay yani maya magac ilaahayna ma ahan yani allahu aclamna la dhihi maayo waxay yidhahdeen waaba ismun min asmaa illah yani suurad waxay yidhahdeen waa magac ilahay magacyadiis ka mid ah ilaahay magac u tahay cabdullahi ibnu cabaasaa laga wariya inuu yidhi alif laamim ismun min asmaa illahi alacdam ismun min asmaa illahi alacdam alif laamim waa magac ilahay magacyadiisi acdam ka mid ah oo weyninka badan marka saddex qool aan sheegnay qowl waxay yidhahdeen allahu aclam culamada kale waxay yidhahdeen waxaa loola jeedaa waa suuradda magaciid culamada saddexaad waxay yidhahdeen maya ilaahay magaciisi waa isku wada duub saddexdaas qowl waxaa ugu xoog badan in loola jeedo ilaahay keliyaa garana allahu aclam abubakar iyo afar khulafaa urashidin sida uu ku fasireen aan raajica ilaahay keliyaa garanaayo cilmigeedan alla yaqaano taasaan annagana ku fasireynaa darsiga halkaas aynoo joogo wallahu aclam wasala allahu wasalam calaa nabiyina muxamed